المسألة السابعة بوقها ليري ولا ليال. المسألة السابعة مبطلاتها مسألة التضباط صلاة وحيالها برينيه ويه يبطل الصلاة صلاة وحبرينيه أمور الرمو نجملها وحنكسو خلاصين وكسو كوبينا فيما يأتي وحصوص عضا. أولا يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة صلاة وحبرية وحكستو طهارة برية لأن الطهارة شرط لصحتها محايا للطهارة والشرط صلاة يكو أصح لهيت فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة هذي طهارة مركب برته صلاة دي وبريسا قفك ويسدي اسagoo salaada ku jiro haday ka jabto salaadiisi waa burtay waa ka kac waa inuu ka baxaa waa maxay soo tahaara qata وهكذا. ثانيا قضبك لبعض صلاة بريه الضحك بصوت وقصل صوت يدوق له وهو كاغاس القهقهة وقهقهة إيو قصلك صوتك صوصاريو فإنه كاغا يبطلها صلاة وبرينيا بالإجماع علماء وح خلاف ودحي أرنك مجرى بل وإجماع هدو قفك قصله قصل صوت لهنا وكسوبحو وبريا محايلة لأنه كالكلام هذا الكو كلوه سيدا هذا الكبا صلاة وبرينيو هذا الكأيو لميدي بل أشد وبكدريا هذا الكا ولما في ذلك وحا أرنك كجرو من الاستخفاف استهانيسي يوم محي كجيسيد استخفاف كوا محي الاستهانة والاستهزاء إن وحي اللغو جيسو أو اللغو عيارواي والتلاعب كديلتان أو المنافي ديدي لمقصود الصلاة صلاة وقصد كده صلاة waxaa loogu talagalay dhikri ilaahay iyo alla caabudid iyo khushuuc haduu qofka marka qoslayo salaadba kuma jiro waa ruux ciyaarayo deedeelaya ama tabassum doola cadeynta miya bila qahqahatin iyadoo qosl qahqaha uusan la soconin fa innahu la yubtilha burin mayo kama naqalahu ibn al-mundhir wa ghayruhu sida uu soo raray al-imam ibn al-mundhir iyo ghayrkiisaba wuxuu tilmaamayaa qosolku salaadu buriya waa hadii qosolkaasi sawd uu wato qosol la maqlay haduu qofkii ka soo baxo salaadii waa ka buraysaa laakiin haduu yara dhoola cadeeyo uu muusoodo qofkaasi waa maxay salaada kama burayso sida raajixa ah bal aathar ayaa jirto عند ابن أبي شيبة تصينيسو صحابة لغا سو وريي إن أي دهين كما بريسو صلاة رولا عدينتا لكن إيادو نفتر كذا وان محي مركا لليه كما بريسو وح لو باهيا ميه ووح أن لو باهنين وقفك إنو إسكا إلالي للدونيو. ثالثا قضب كسدحات مبطلات ككمدة الكلام عمدا وإنو قفك هذا الكسأة أوها الله لغير مصلحة الصلاة هذا الكاسو صلاة مصلحة هذا أنا نهين oo hadal salaada maslaxadiisa amiya jiro naam mararka qaarkood waxa suuragal ah imaamka inuu uu maxaa la yiraahdaa ismoodsiyo uu salaadii oo dhameystirnayn uu tukado markaas ma'muumiinta qaarkoodna ay ka aamusaan kadibna hadhooti ay la hadlaan ay dhahaan salaadii waxba ka dhiman ama waad ziyaadisay ama waa maxay yaraysay markaas waa maxay haday yareeyeen waa istaagaya مثلا 3 ragcadood baa tukatay baa lagu yiri ama 2 ragcadood hadal baana soo dhex kala galay واستاغيا امامكي ودميسترانيا وحديثكي ذو اليدين نينكي قعمه دheera ahaa ee nabiga sallallahu alayhi wasallam intuu laba ragcadood ku salaamo noqsaday ayuu yiri markuu salaadii ka baxayna meel buu iska tagay nabiga fadhiistay saxaabadii waa ka heebaysan inay la hadlaan ninkan baa marka oo gacmada dheera oo gacmo dheer lagu naanaysi jiray ayaa la hadlay wuxuu ku yiri rasuul allah salaadii miya la gaabiyay masawaad halmaamtay markaasuu yiri labada midna ma dhicin mana halmaamin salaadina lama gaabin markaasuu yiri labadaas mid baa dhacday buu yiri markaasuu saxaabadii weydiiyay yiri ma sida uu sheegay dulyadayn ba haabay dhahan intaasi waa maxay hadal baa isdhaafsanaya laakiin hadalkaasi amdan meehe wali maslahati as-salah marka taasuu raba inuu ka ixtiraazo al-kalaamu amdan wa hadal kasali ghayri maslahati as-salah salaada maslahadeeda iyo danteeda aanan ahayn. فعن زيد بن أرقم وحلقوري رضي الله عنه قال وحير كنا وحانهين نتكلم في الصلاة وصلاة كل حلا يكلم الرجل منا متكيغ وحولها اللي جري صاحب كيس كل جن وهو إلى جنبه سوى قرب تاغن في الصلاة صلاة الدحديدة حتى نزلت إلا إسودكتي وقوموا لله قانتين وإستاغ إلهي أدمك خشوعا فأمرنا مركزا وحانا الأمر بالسكوت آمس ونهينا وحانا لكرب عن الكلام هذا markii hore salaada waa lagu dhaxal jiray kadib baa la nahiyay oo la xarimay laakiin fa in takallama hadu ruuxi hadlo jaahilan
isagoo wixii jaahilba ka ah xukunkii aw naasiyan ama isagoo ishalmaamsanba hadal ka soo baxay laa tabtulu salaatuh salaadiisa buri mayso qofka isagoo jaahilah ama ishalmaamsan hadduu hadal ka soo fulo salaadii ka buri mayso maxaa loo daliilsaday xadiiskii mucaawiyata bn alxakam nabiga sala allahu calayhi wasalam wakhtigiisii bay dhacday nin baa hindhisooday markaasuu waa maxay mucaawiyata bn alxakam wuxuu yidhi yarxamuka allah waa u duceeyey sida caadiga aheed qofka de markuu hindhisoodo in loo duceeyo raxmadda iyo loogu duceeyo markaasay saxaabadu gacmaha isugu dhufteenoo si ay u aamusiyaan ma oga in salaada la nahiyey hadalka iyo waxaasoo dhanba la joojiyey markaasaa weliba indhihiibay xoogaha wuxuu dareemay in wax qariiba ama layaaba uu sameeyey markaasuu sii hadlay wuxuu yidhi waa takla ummaa war hooyaday gablantaye dadku maxay indhaha iigu soo gubayaan maxaan sameeyey waa sii hadlay ninkii la aamusinayayoo ma aha hadhowtiibaa markii salaada laga baxay nebigu sal slam wuxuu yidhi kii salaada ku dhex hadlayey kuu ahaa markaasuu yidhi anigu ahaa rasuul allow markaasuu u yeedhay markaasuu ku yidhi ina haadihi asalaah laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas salaadantana dadka hadalkooda uma habboona markaasuu ka qisoonaya mucaawiyata bn alxakam wuxuu leeyahay fawallaahi maa ra'aytu mucalliman walaa murabbiyan axsana tacliiman minhu ilaahay baan ku dhaartee macallin iyo cid wax tarbiyaysa ee ka tarbiyo wanaagsan ama ka baris wanaagsan ma arag ima canaanan ima caayin ima aflagaadaynin ima guulguulin ee wuxuu igu yidhi un salaadani intaa looma ogola xadiiska waxaa laga daliilsanayaa mucaawiya radiallahu canhu mucaawiyata bn alxakam salaaddii waa ku dhex hadlay bacdamaa weliba la xarimay in salaada lagu dhex hadlo laakiin muxuu ahaa jaahil buu ahaa arrinkaasi uma cilmi lahayn wa min hunaa nebiga ma dhihin sala allahu calayhi wasalam salaadaadii orodo soo celi lama dhihin bal inuu dib ka samaynin falka ayaa loo sheegay marka hadalka salaada burinaya oo hadalka camdanka ah way kaska ah raabican qodobka afaraad muruuru lmar'ati dheh haweenayda maritaanka ay marto haweenaydii albaaligati ee qaangaarka ahayd aw ilximaari ama dameerka aw ilkalbi alaswadi ama eygii madoobaa bayna yaday lmusalli ruuxa tukanaya hortiisa duuna mawdici sujuudihi sujuuddiisa meel ka sokayso hadday maraan salaaddii waa buraysaa buu yidhi liqowlihi sala allahu calayhi wasalam baa loo daliilsaday idaa qaama axadukum yusallii axadkiin hadduu istaago salaaddiisii inuu tukado u kaco fainahu yasturuhu waxaa asturaya sutro u noqonaya idaa kaana haddii uu noqdo bayna yadayhi hortiisa midla aakhirati araxli dheh kooraha qaybtiisa dambe kooruhu waa waxaan geela ama la saaro ama fardaha lagu fadhiisto oo la koro ayaa waa maxay aakhirkiisa dambe intaasoo kale ayaa salaadiisa sutro u noqonayso faidaa lam yakun bayna yadayhi haddaysan hortiisa oolin midla aakhirati araxli koorahaasoo kale gadaashiisa ama fiiqiisa dambe wax u dhigma haddaysan hortiisa oolin fainahu yaqtacu salaatah salaadiisa waxaa jaraya oo burinaya alximaaru dameer iyo walmar'atu haweenaydii iyo walkalbu alaswadu eygii madoobaa waalraxlu raxlaha uu sheegay oo kooraha uu tilmaamay huwa maa yurkabu calayhi cala alibil waa waxa lagu fuulo geela marka la fuulayo waxa lagu fuulo oo lagu dul fadhiisto ayaa waxaa la yidhahdaa alraxlu wa huwa raxligaasi kasaraji buu la mid yahay lilfarasi kooraha faraska sarajka faraskaa loo adeegsadaa carabiga raxligana inta badan geela waxa la saaro oo lagu fadhiisto ayaa loo adeegsadaa marka waa isku macno asaraj iyo alraxlu isku macno un way midna waa faraska midna waa geela wa mu'akharati araxli kooraha gadaashiisa ama aakhirkiisa miqdaaruhaa inta u dhigmatana diraacun waa dhudhun haddaan kooro la garanayn oo aan masaafo ama qadar aan rabna inaan samaynuu leeyahay dhudhun wax u eg inuu qofka hortiisa dhigto ayaa u noqonaya sutro fayakuunu hada almiqdaaru wuxuu noqonayaa qadarkani huwa almujzi'u kii gudayay fi sutrati asturaadi ayib mas'alo wuxuu inoo keenay yara adag soo maaha in salaaddii ay burayso haddii sutro aysan qofka u oolin ama isagoo sutro ay u taallo hortiisa sujuuddiisa meesha ka sokayso hadduu dameer maro ama haweenay ay marto ama ey madow uu maro salaaddii waa buraysaa
xadiis baa loo daliilsaday waa xadiiskan uu keenay oo imaamu muslim uu wariyey siduu hoos idinkugu qabtay ayay u daliilsadeen madhabkaasi waa madhab culummada qaarkood ay qabaan xanaabilada ayaa qabo laakiin jamaahiiru ahlilcilm siday u badan yihiin maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanafiyadaba waxay qabaan inaynan salaadii buraynin xadiisku marka fasir kale ayay saareen waxaa laga wadaa bay dhaheen yaqtacu salaata salaadii baa nuqsaamayso ajarkeedii baa nuqsaamayo oo waxaa keenaya qofkii waa mashquulaya qalbigiisii khushuuci baa ka tegaya waxbaa soo hormaray ama cabsi geliya ay iyo dameer ah ama islaam baa soo hormartayoo markaa uu maxaa layaha fayrada iyo daymoonta iyo indhihiisii la laacay baa laga yaabaa inuu markaa uu ku mashquulo qalbigiisii salaaddii marka khushuuceedii iyo qiimigeedii baa hoos u dhacaya sidaa ayay ku ta'wiiliyeen waxayna daliilsadeen laba xadiis oo midna caaisha radiallahu canha laga soo warinayo markii xadiiskan loo sheegay caaisha waa inkirtay waxay tidhi shabbahtumuna bilxamiiri waalkalb aw kama qaalat radiallahu canha waxaad nagu soo miaaliseen dameer iyo ey bay ku mucaariday ay tidhi waxba kama jiraan arrinkaas marka caaisha madhabkeeda iyo xadiiskaasii daliilsadeen arrintani waa arrin dadka qaarkood ay uga dhigaan shubho islaamku inuu dumarka uu yeso waxay uga dhigeen maxaa la yidhaahdaa dadyowga qaarkood meelahay u daliilsadaan ayay ka mid tahay laakiin arrinkaasi waxaa looga jawaabayaa in shayga in la yidhaahdo ashyaada laisku daro naqsi ma keenayso oo haweentii hadda halkan lagu sheegay dameer ama ey bay la mid tahay lama odhan xagga insaaninimada ama sinaanta ee xukun ayaa laga ratibay ashyaada qaarkood dhinacyada qaarkood waa iska shabahi karaan miaal aadanuhu soo wax ma cuno wax buu cunaa cunnu u baahan yahay cabitaan buu u baahan yahay xayawaankuna soo wax ma cunaan waxna ma cabbaan haddaan nidhaahno aadanaha iyo xayawaanku waxay iska shabaheen xagga wax cunistu ma naqsi baa ku jiro oo aadanaha aan naqsi u geyrsanayno mase inuu aadanuhu la mid yahay xayawaanka miyaa ka dhalanayso kama dhalanayso miaal labaad waxyaalaha salaada jebiya waxaa ka mid ah hilibka geela soomaana soo marin inuu weysada jebiyo sidoo kale waxyaalahan qurunka akramakumullah ee aadanaha ka soo baxo weysadu isna jebiyaa ma waxaa ka dhalanayso wixii nadiifka aadanaha uu cunayey iyo qurunkii laiska dhowraya inay isku mid noqdaan laa kama dhalanayso xukunku meel bay ka wadaagi karaan shayga iyadoo markaasi asal ahaan ay kala gedisan yihiin walihaada dadka islaamka dacninaya ama in dumarkii lagu xadgudbay meelaha ay daliilsadaan ama shubuhaadka ay qabsadaan ayay ka mid tahay shubhadaasi meesha ma taalo jamaahiirtu waxyaalaha ay daliilsadeen waxaa ka mid ah ibnu cumar radiallahu canhu inuu soo hormaray sufuufta qaarkood isagoo dameer wata markaasuu dameertii sii daayey markaasuu jameecadii dhinac ka galay dabcan culummada kale waxay leeyihiin musalliinta waxaa sutraa imaamkaa sutra u ah imaamkana sutra u taalay laakiin xadiiskaasi jamaahiirtu axaadiista ay xoogga ka dhigteen inaynan salaada ku buraynin dameer iyo maxaa la yidhaahdaa ey iyo dumar iyo wixii la midka ahi iyadoo markaa axaadiistaasi daliilsanayaan waxayna ku fasireen qaطci salaadka salaada goyntaasi inuu ajarkeedii nuqsaamayo halka aimo kale imaam axmed iyo ay ka mid yihiin ibnu khusayma iyo ay ka mid yihiin ay ku fasireen salaadu in ay ku burayso hadday hormaraan ashyaadaas xadiiska lagu sheegay ee saddexda ah khaamisan qodobka shanaad kashfu lcawrati camdan cawrada oo la qaawiyo ama la fayda si kas ah limaa taqadama waxa inoogu soo hormarayo fi shuruudi qofku haddii cawradiisa uu kas u faydo isagoo salaaddii ku jiro salaaddii waa ka buraysaa laakiin hadday ka faydmato isla markaasi uu dato salaaddii buri mayso saadisan qodobka lixaad ee salaada buriya istidbaaru lqiblati qibladii in laga jeystado lianna istiqbaalaha maxaa yeelay in la qaabilo qibladii shartun lisixati salaa waxay shardi u tahay salaaddii inay asaxdo salaadaada inay asaxdo waa inaad qibladaa qaabishaa haddii aad ka jeysata marka waa maxay salaaddii kaa asixi mayso ayib saabican qodobka toddobaad itisaalu najaasati najaasadii inay la xiriirsanmato
بالمصلي روحي تكنيي مع العلم بها إساغو أغ نجاسداسي وتذكرها إساغو حسوسا إذا لم يزلها هديء سنزول في الحال إسلام مركيبا نجاسدو وحياله اللي يري إلا الزولية واي وشروط كميدة هاي إنو قفك بدن كيسة ثوب كيسة إيا مكان كيسة وإنو طاهري هاي هدو مركا النجاسة أوسيتو أما وحا ولبسيها أي نجاسة هاي وما حي صلاة سوى بريسة وحلقة سوريبيا أما الله حريا إنو أغيهاي أما هدوسا أغين جهلي ويكسور ريبين سيدو كالي هدي انتو مركيبة حسوستو زولية كبو كالوها أما عمامدو كلا أما كوفيدو كالوها شيء بحين كرا أما أسيبي كرو مركاسو انتو اسكا سيبي بو اسكا لغي ويكا أصحيسا محايا النبي صلى الله عليه وسلم وقت يدا كميدا كبيهسو كنتو كنيه markaas jibriil uu waxyooday wuxuu yiri kabahaaga najaasay leeyihiin markaasuu kabihi siibay saxaabadina kabihi bay wada siibeen markuu salaada ka baxay buu sheegay wuxuu leeyahay jibriil baa yimid oo ii sheegay inay kabahiga najaasay yihiin marka qofka hadii uu xasuusto isagoo salaadii ku jiro waa maxay markii uu iska bixinaya waatan ay u daliilsanayaan marka nabiga sallallahu alayhi wasallam salaadii dib kama soo bilaabin halkii uu ka sii watay markii uu xasuusay inay najaasa yihiin waxana waa iska bixiyay taaminan qodobka sideeda tarku ruknin waa ka tagid rukni oo min arkaaniha salaada arkaanteeda kamida aw shartun ama sharti oo min shuruudiha salaada shuruudeeda kamida waan soo marnay shuruudii arkaantii amdan waliba kas uga tago biduuni cudrin cudur daar la'aan hadii uu kas uga tago waa maxay salaadii waa ka buraysaa تاسعا قضب كسقالات العمل وعمل سمين عمل كي الكثير بدنا من غير جنسها صلاة جنس جدا أن كمد أهين لغير ضرورة ولبا ضرورة الآن أسميه وكلية صلاة وحبرية هدو قفكو عمل فربضا أسميه مشغول فربضا هدو قالوا وصلاة دي آنا كمد أهين وحي اللي قد حقبانيه ضرورة كينستي يباهي كينستي عمل كاسنا أسنجرين صلاة دي وكبريسا لأنه محايا لي قف أن صلاة كجرين بوئك هذي أما إسكا عياريا أما نولشي سيئو عادقا قبصانيا ولذلك حكومي ثالث كالأكل والشرب عمدا عنس يعبد أو قفك أكسه عنيد يعبتان كوا محيوا إجماع سيدا إمام ابن المنذر وتلماميو صلاة دا إني كبريسو كل هذا سيدا تاي مركا وحنو تجدونا أشياء قاركود أو أن صلاة برينين أو حركة أما عمله وحن شيء دونا إن شاء الله تعالى مركن وحيالها كرا مكروهات كأن كبحنه أما ما يكره في الصلاة عاشرا قضب كتوبانات كم إذا صلاة وحبورية الاستناد وعسكشو أما كتيرسشو لغير عذر يدع عذر دار وسنجرين قفك إنه مال وكتيرسدو وما حي صلاة وبرين يسابر هديسا عذر دار جرين محايلة لأن القيام استاقو وشرط لصحتها شرط صلاة أي كو أصحي سوي إنه قفك استاغو وشرط صلاة دي سيني أصحضو لقربو أما هدي عذر دار جرو صلاة دي وأصحيسا باتفاق أهل العلم قفكو هدي عذر دار إيو حنون وجر أولد ومال وقتير سيهي أما الدربي وعسكدو أما أول عسكدو إيو حلمت كاهي ومحي وأصحي ولي حديثك أم قيس بنت محسن أبو داود يسو صارين رسولك صلى الله عليه وسلم مركي وحوغا دأدي أي كتمت وحوغا هلبنا ويرفولي أي وحوسا ميستي عمودا في مصلاه يعتمد عليه تير وعسكدو أما الشيء وكتاكسدو أيو سميستي مركا دي قفك عذر دار وباهي أي جرتو وأصحيسا لك هديسا باهي جرين استاقي وللربي ورميسترنا باللقواي ومن ثم صلاة وبريسا بوليه 11 قضبك كويتوبانات تعمد زيادة ركن إن لو لقصد الله كسو إن ركن لو قدر صلاة ركن غاسو فعلي فعله كالزيادة في الركوع وحوب الزيادية ركوع دي والله كدغي والسجود سجودي ركعد والبلبه السجود هاد بسدح كدغي وبريا محايله لأنه يخل بهيئتها هيئة صلاة لو تلقلي أيو وحك بدليا فتبطل مركز صلاة وبريسة إجماعا يدو خلاف أسنجرين 12 قضب كلابات وصلاة يكبرته تعمد تقديم بعض الأركان إن لو لقسته إن لهرمري أركان تقاركت على بعض بركة كلا لهرمريه محايلة لأن ترتيبها كلا رتبتان كذا الركن
كما تقدم سيدي صهر مري قضب كلبي تمنات أركانتي صلاة أو قيامكي يفاتحدي الركوع دي سيدا السجوح حجي أيوك له هرمري سجودي بهرمري مركز الركوع دي كحجي سكسة صلاة وكبري سمحايا لي ترتيبك صلاة الله قلت لك لي أيو خلدية 13 قضب كسدحي تمنات تعمد السلام إنه أكسه إنه سلام النقصده قبل إتمامها صلاة وأن رمي السرمانين صلاة دي وصن رمينين بو أكسي إنه صلاة دي كبحه صلاة دي وكبريسا 14 قضب كأفري تمنات تعمد إحالة المعنى إنه أكسه إنه معنيه إسبدله في القراءة مركب قرآن كوأخرينيه أي قراءة الفاتحة ويولي الفاتحة مركو أخرينيه لأنها ركن محايا له والركن قفك فاتحة مركو أخرينيه بو معنيه سيخ كسأ أيو معنيه أبدليه أو أخرينتي بو خلط يسي معناها ويسكو بدله قفك النوع عاس سلاة دي سوا محي وبوري سابيري 15 قضب كلبي شانية طبانات فسخ النية نية دي صلاة وكوغالي إنو فسخه وبكب حبا بالتردد وكل بقلبيين أو بالفسخ إنه صلاة دي كبح فسخي هو محي صلاة دي أتكنيس الظهر أما عصر أما مغرب أما عشاءها بضحاتري نيو مكبحها صلاة أو مركزة العليسي أما واد بكبح ذي واد قوان ستي تردد كالنوع عاسوا محي إيو بالعزم عليه إنه قوان قادته لبضا بصلاة دي وكبريسا محايا لأن استدامة النية نيدي إلا الدائمية أو الجوكتية إلا صلاة دي كدماته شرط وي ها شرطي وي ولهذا وحيليهن عند الأئمة الثلاثة وحي طبعا والجماهير مذهب كان سيده وكسعده إن نيده وقفك الدائمية إلا صلاة وكبحيه هدي أولي ماذا وح برينية نيديسي مثلا صلاة ديبو إيضا أمانين بو كبحي أما وترددي أما نيديسي أيوة محي صلاة كلا أوريديي ظهر بيهيد عصر بكردي وهكذا نيداس بهدي بالتردد قشواني هدايتي نيدا أنكب اللعبي مسألة دي هرانا على قل لهي نيدو مهم هدا نيدا هذا كتردده أما الصلاة دي تكنيسي صلاة كلا نيدي أوريديس ظهر بيهيد عصر بدشي انت حسوستي إمامكي أما واتسوقرتي أما مغرب باد لينيسي مركاسي عشان نقطي وهكذا ترددك النية اللي فسخه صلاة دي وكبريسا محايا لي نية ذو صلاة مركات قشي إلا أنت أتكب حيثو إني دائمتا لربا والشرطي صلاة إني كد دائمته للدونيو مسألة الثامنة إن شاء الله درسي قدام بقى ينقدر دوننا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين